Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan dalka Itoobiya. Dalka Itoobiya waa dal dhaca qaaradda Afrika, gaar ahaanna waxa uu dhacaa Geeska Afrika. Dalka Itoobiya waa dalka tobnaad ee ugu dhulka weyn leh qaaradda Afrika, waxaana dhulkiisa lagu qiyaasaa 1,104,300 kiilomitir oo iskuweer ah. Waana dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaana dadkiisa lagu qiyaasaa 105 milyan oo qof. Dalka Itoobiya waxa ay xuduudo wadaagaan wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Eritrea, Kenya iyo labada Suudaan. Itoobiya waa dalalka bilaabadda ah ee ku yaala qaaradda Afrika ee loo yaqaano landlocked. Sidaa daraaddeed, dowladda Itoobiya waxa ay had iyo jeer awoodda saartaa gaadiidka xagga cirka, waana waddanka ugu horreeya gaadiidka hawada goosha ee loo yaqaano diyaaradaha. Itoobiya waxa ay leedahay taariikh dheer, waana dowlad guun ah oo muddo badan soo jirtay. 120kii sane ee ugu dambeeyay waxaa xukumayay 15 hogaamiye oo kala duwan, oo qaar ay boqortooyo yihiin, qaarna ay maamul iyo madaxweyneyaal la soo doortay yihiin, waxaanay magacyadooda iyo mid waliba muddadii uu xilka hayay kaaga muuqdaan shaashadda. Itoobiyada imika jirta waxaa loo qaybiyaa 9 gobol oo ay ku jirto dhulka Soomaalida laga haysto ee loo yaqaano Kililka Shanaad. 9ka dowlad goboleed waxa ay kala yihiin Cafarta, Amxaarada, Bingushu nooca loo yaqaano, Gambeelaha, Harari, Oromiya, dhulka Soomaaliyada la haysto, Southern Nationalist qaar la yidhaahdo, iyo Tigray. Ciidanka difaaca ee Itoobiya waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400,000 oo ciidan ah oo infantry ah. Waxaa kale oo jira diyaarado dagaal iyo weliba noocyada kala duwan ee hubka oo ay ku gaashaaman yihiin. Itoobiya waxa ay dagaalo qadhaadh la gashay waddanka Eritrea oo ka go'ay, iyo dowladda Soomaaliya oo uu dagaal qadhaadh dhex maray sanadii 1977. Waxyaalaha taariikhiga ah waxaa ka mid ah ee waddanka Itoobiya uu leeyahay masjid la yiraahdo Al-Najashi oo loogu magacdaray boqorkii taageeray asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii ay u soo haajireen Ardul Xabash. Halkan idiin muuqata waxaa ku aasan 13 asxaabi iyo boqor Najashi, waxaanay ku taallaa gobolka Tigray.